السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channel كينا كوريال aan dhanka kore ee nolosha muuqaalkeena maantay waxay hordhac u noqonaysaa muuqaalo taxanaa oo aan ku qaada dhigi doono wadamada adduunka iyo fursadaha ganacsi ee ay Soomaalidu kaga faa'iideysan karto waxaana diiradda ku saarayaa muuqaalkeena maantay wadanka Rwanda haddaba intaan gudaha gelin fursadaha ganacsi ee laga faa'iideysan karo wadanka Rwanda waxaan idin dulmarayaa xog guud oo ku saabsan wadanka Rwanda waxa uu dhacaa qaaradda Afrika gaar ahaan Central Africa ama Afrikada dhexe waana wadan aan lahayn wax bad ah waa wadamada loo yaqaan landlocked countries sanadkii 1909 ayaa waxa wadanka Rwanda ka dhacay xasuuq aad u baahsan taasoo lagu beegsaday Tutsi waxaana 100 maalmood gudahood ku dhintay tiro gaaraysa 800 oo kun oo qof in ku dhow 1 milyan oo qof wadanka Rwanda life expectancy ama qofka inta uu noolaan karo qiyaas ahaan marka la isku celceliyo waxa uu ahaa 28 sano ama inta u dhaxaysa laakiin dadkii Rwanda waa ay heshiiyeen waxayna noqotay Rwanda 44 wadan ee ugu musuqayar taasoo gelinaysa kaalinta labaad qaaradda Afrika waxa ka horeysa Botswana oo kaalinta koowaad ku jirta Rwanda maanta waxay ku jirtaa kaalinta 15aad wadamada dhaqaalahoodu aadka u kobcayo waxaana dawladda Rwanda u qorsheysan inay noqoto Singapore Afrika waxa madaxweyne u ah Paul Kagame oo markiisii ugu horeysay la doortay sanadkii 2003 2010 iyo 2017 isagoo leh khibrad ciidan halkaas oo uu ahaa military waxa caasimad u ah magaalada Kigali oo lagu tilmaamo inay noqotay magaalada ugu nadaafadda badan Afrika haddaba fursadaha ganacsi ee dalka Rwanda leedahay maxaa sahlaya waxa fududeynaya saddex qorshe oo uu la yimaaday Paul Kagame oo ah inay geographically ama deegaan ahaan ay ku jirto centerka Afrika number 2 xasilooni siyaasadeed ayuu wadanku leeyahay qorshaha saddexaad waxa weeyaan fududaanshaha inaad ganacsi ka dhex abuurto wadanka haddaba saddexdaas qodob anagoo ka duuleynaa ayaan guda gelaynaa fursadaha ganacsi ee wadanka ka banaan sidoo kale warbixin uu soo saaray World Bank waxa uu sheegayaa in Rwanda ay ku jirto wadanka labaad ee ugu fudud inaad ganacsi ka samaysto sidoo kalena saadaasha dhaqaaluhu waxay sheegayaan maalgashiga aad maanta Rwanda geliso inay tuman jibaar himiso sanadaya gudahood waxaana ku soo koobaya hadii ay beedmo 5 qodob oo faahfaahsan waxay qaadataa 6 saacadood oo kaliya inaad ganacsigaaga ku dhex diiwaan gashato wadanka Rwanda waa 6 saacadood oo kaliya waa maalin barkeed ganacsiyada ugu fudud ee ka samaysan karto Rwanda ama fursadaha ganacsiga ka banaan waxaan ku soo koobay 5 qodob ama 5 sector oo aad u waaweyn adiga ayaa ka dooran doona ka jeceshahay midka koowaad oo ah food processing ama cuntada oo la kasaadeeyo inta badan 50% alaabta ay Rwanda la soo degto waa cunto Rwanda waxay la soo degtaa bariiska sonkorta dairy productska oo ay kamid yihiin yogurtiga ama jiiska waa waxyaabaha laga sameeyo caanaha cabitaanka jaamka sidoo kalena burka iyo waxyaabo kale badan maadaama bulshada wadanku si xawaaro ah u siyaadayso waxa sidoo kale badanaya baahida loo qabo cuntooyinka noocan oo kale ah gaar ahaan magaalooyinka waaweyn haddaba fursaduhu waxay ku jiraan inaad warshad ka yegleesho adigoo soo saaraya caanaha iyo productigiisa kala duwan burka sidoo kalena kasaafada oo wadanka Rwanda aad u baxdo fursadda labaad ee aad geli karto waxa kamid ah constructionka ama waxa loo yaqaan real estate oo ah dhismayaasha iyo hantida maguurtada ah sida guryaha iyo dhulkaba maadaama yahay wadanku wadan dhaqaale ahaan xawaare sare u kobcaya waxa badan baahida loo qabo guryo iyo dhul la dego taasoo soo jeedanaysa shirkadaha dhismaha iyo shirkadaha real estate ka shaqeeya hadaad sidoo kale tahay engineer waxaad ka heli kartaa fursad ah inaad ka shaqeyso construction industry marka hadaad jeceshahay ka ganacsiga real estate ama construction-ka fursad aad u weyn ayaa kaaga furan wadanka Rwanda fursadda saddexaad waxa weeyaan fursadda abuurida warshado yaryar waxay sahlaysaa in badeecadii durba laga iibsado waxaana kamid ah fursadaha banaan inaad soo saarto caagadaha balaastika ah waraaqaha iyo sidoo kale printingka samaynta alwaaxyada iyo agabka alwaaxyada ama faryaamada sidoo kale xarunta dawooyinka samaysa sektorka afraad ama qorshaha afraad ee ku shaqeysan karto wadanka waxa kamid ah dalxiiska maadaama Rwanda ay soo jiidanayso indhaha dadka shisheeye waxa sahlan in fursad laga abuuro sidoo kalena waxa si badanaysa maalinta ka dambaysa dakhliga ka soo xarooda dalxiisayaasha oo sanadii la soo dhaafay ee 2019 lagu qiyaasay 45 milyan fursadaha ka banaan waxa kamid ah dhanka hoteelada meheradaha cuntada goobaha dalxiiska oo samaysatid iyo sidoo kale goobaha dhaqanka sida matxafyada sektorka shanaad ee ka faa'iideysan karo waxa kamid ah internetka iyo khidmadaha kombiyuutarka wadanka Rwanda waxa uu ka guurayaa agricultural ama se wax loo yaqaan beeraleynimo to ICT yani waxa weeye adduun ICT-ga ama kombiyuutarka la xiriira oo iyagoo ku saleynaya dhaqaalahooda iyo aqoontoodaba wadanku waxa uu leeyahay ilaa 2 fiber optic oo u khaas ah magaalada Kigali oo kaliya
waxaana fursado laga heli karaa kow internetka iyo khidmadaha kombiyuutarka sida internet kafeeda. 2 call centerada sidoo kale la talin xagga kombiyuutarada iyo sidoo kale inaad iibsato hardware-yada kombiyuutarada ama inaad iibiso hardware-ka kombiyuutarada oo fursad weyn ka jirto ama kombiyuutarada laftirkoodaba inaad keento wadanka ama qalabka elektarooniga intaas haddaba waxaa nagaga eeg barnaamijkeena ganacsiga oon ku eegaynay fursadaha ganacsi ee ka bannaan waddanka Rwanda. lana soco barnaamijyo kale oo taxana ah oo aan soo sii dayn doono axad kasta macluumaad dheeri ah wadamada Afrika ama adduunkaba ganacsiga aad ku samaysan karto. fadlan commentiga noogu soo qor wadanka aad jeceshahay inaan ku xijino oo soo gudbino axad dambe insha Allah. hana ilaawin inaad subscribe tiraado si uusan kuu dhaafin muuqaaladeenu aad baa u mahadsan.